كل كان وحدارين هاي أو تبرد ورك بدوية هنتي سومالي لان هرمر بالجوتي waxay ka baxday xaaladii degdeg ah inkastoo duruufo fara badan ay jiraan marka waxaan ugu talagalay in saxaafadda Soomaaliland oo runtii muddadii 25 sano ay dalku wax badan u soo qabatay inay la jaan qaado horumarkaasi dalku ku talaabsaday oo barnaamijyada socda runtii ay wax badan ka ogaadaan isla markaana ay bulshada u gudbiyaan mashruuca SDF wasaaradda qorsheynta qaranka iyo dadbixiyaashu wadaan waxa uu ku focus gareysan yahay تطور وسائلات وأحكوا بحياة أذكية بالشدة. وسائل القرشية ترانكو يلو كتوليزة مسؤولية السعران حولها لو المضي وها صندوق هرمات السوالنا وكالين هي نحسي سيدي وها لو برها سلمر كان الصحافة سيدي وشيء مدن حمود مدن سوشا أقولك كان قال هاي هرمات كأنه أردني وحدود كده كده يقول تلا بس هو قاعد يشارك سنوات بيه طبعا كي سنوات اللي صار عافية لمد ما مانتا طبعا سنوات صار لمد ما هي مانتا مركا واحد مو باهنا هاي إن المسلك كان قال حفلة إنه ما تشوفنه أما توبرك إنه ما تشوفنه روحاتي ومد بهيمة واتهوريه كستو جمهورية الصومال لانكاول كلا إنه قادو hawsha ay qabtaan runtii waxa ay tahay ama umadahan waxaanu sameeynaa oo maanta warbaahinteena ku saleysan haduu printka yahay ama qoraalka ama TV-ga uu yahay ama website-yada uu yahay run ahaantii muxuu ku saleysan yahay ku jahaysan yahay cidda ka mas'uulkana waa wariyaasha marka runta loo wada hadlo wariyaashu qayb weyn ayay ka qaataan sida loo jaho ummad maxaan ku dhahdaa ay jirta waxaan naga go'aan haddaan wasaaradda nahay aniga iyo inta kale ila shaqeysaba inaanu suxufiga ama ururada suxufiyiinta iyo mulkiilayaasha saxaafadda ee kala nooca ah intaba inaanu la shaqeynaa naga go'aan intaba waxaa naga go'aan inaanu tayeyno wixii aanu ka hawlgeli karno aanu ka sameeyno intaba waxaan la go'aan inaanu noqono dad isku xiran oo ka fakaraya laakiin saxaafad madax banaan oo qarankan iyo dalkan u adeegta inayna haysano madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland way ka go'an tahay xisbiyada way ka go'an tahay waa mid rukunadeena ugu waaweyn ee dalkan uu ku dhisan yahay kamid ah inaanu kobcino mooyaane inaanu ama caburino ama ku tacadino mid suurtagelaysa maaha wariye kasta inuu ogaadaan jecelahay urur walba inuu ogaadaan jecelahay mulkiilo walba inuu ogaadaan jecelahay laakiin waxa u baahan in la hago ama la tayeeyo ama la saxo ila waxaan qaladaan meelaan qalad ku jirin ma jiree waa mid aynu u wada fadhino idinkana aanu idinka martinahay aad inaad lead ka qaadataan ama aad hormood aad ka noqotaan waa mid aan maxaan ku dhahay idinka fadhino aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan jeclahay inaad barnaamijyadiina mustaqbalka ku kororsataan inaan siyaasaddu ahayn ta quree dalkan ka socota ee arrimo bulsho jiraan ee jiraan horumar qorshooyin horumareed ee jiraan inay waxaas oo dhan ay tahay mid aynu qalinkeena iyo microphone-keenaba aynu u qaadan